Assalaamu calaykum waa walaashay Filsan iyo dumarkaaba channel soo dhawaada ugu horreyn haddaan ugu cusubtaa subscribe noo saar hore haddaan noo joogi jirteen nala sii joog wixii fariina comment noogu reeb aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaya maanta waxaan noo wadaa video cusub oo ka mid ah videoyadii inooga socon jiray channelkeena kuwaas oo ahaa talooyinka ku saabsan dumarkeena Soomaaliyeed aniga ku dhex jiraa okay waxa weeyaan waxaan arkay horta in badan aan la soconay gabadh walaasheen ah oo cadaadiyo ma waxba saas ugu qoran tiktokeeda kole mar hore waxay noo soo bandhigi jirtay qiso macnaha iyada nolosheeda ah oo iyada iyo nin isqabeen oo maxay ahayd ilmo ay u dhashay macnaha dhibaato badan soo marsiiyay okay haddana ay soo qaaday qurbaha keentay qurbihii markay keentay haddana halkii laga rabay inuu garab istaago oo dee qofka sida la iska wada ogyahay marka qof la soo qaadayo amba dacwada lagu keenayo kale waxa weeyaan qofkaas kharash badan buu galaa talabaad waqti badan buu shaqeeyaa maadaama dee uu rabo inuu lawyer iyo dee hawlo qabsado qof dee incomekiisu aanu fiicnayna qof looma soo qaado si aan iska wada ognahay haddaba halkii laga rabay inuu garab istaago oo caawiyo oo macnaha sidii dee daalkii iyo dee deyntiiba ay uga soo kaban lahayd inuu ku caawiyo ayuu ka tegay waase iyadu inoo sheegtay laakiin xaqiiqda ilaahay baa og waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri wixii dee macnaha daahirka aan inagu arkayno uma xukumin karnaa laakiin wixii naga qarsoon ilaahay baa og saas markaa darteed waxaynu inagu arki karnaa amba ka warami karnaa wixii laynoo soo sheego banaanka la keeno laakiin wixii kale naga qarsoon iyo wixii dadka dee labada qof ka dhexeeya ma ogaan karno iyo midka khaladka iyo midka saxda haddaba muhiimadeedu intaas ma sii aha laakiin muhiimadeedu waxay tahay inaan ka hadlo gabadhaas walaasheen ah inaan talo siiyo iyo gabdho badan oo maxay ahayd la mid ah macnaha amba hadda ha ku jiraan amba ha ka baxaan amba ha soo socotaba macnaha kuwa ku iman doontaan ka wadaa marka waxa weeyaan horta haddaan gabdho nahay amba haddaan dumarka Soomaaliyeed nahay guud ahaanba nolosheena dhan waxaynu haysanaa in nin la guursado iyo in ilmo la dhalo bas intaas nolosha dhan baan u haysanaa sababtoo ah dhaqankeena iyo bulshadeena Soomaaliyeed baa taa aaminsan markay gabadha yar tahay tusaale ahaan ninka amba wiilka markuu yar yihiin iyo gabadha laba qof oo walaalo gurigooda jooga markay yar yihiin gabadha maanta dhan waxa la leeyahay ayaa waxaan qabo sidaan qabo reerkaaga beritoole ku anfici doona markay macnaha gabdhuhu soo yar waaweynaadaana sidaas ka naqaano amba maamooyinka Soomaaliyeed u badan yihiin gabadhii hadday yara caajistaan sidii wax loogu diray u qaban weydo waxa la leeyahay allah hoogay tani way bacday tan ka sugayaa bacay maxay ahayd sidaas adu macnaha hadallo badan ay isticmaalaan maamooyinkeena ilaahay xafido jannadana ilaahay ha geeyo taasee horta anigu ma arka wax xumaana laakiin macnaha waa dhiirigelin iyo gabadha waxay rabaa inay boodhka iska jafto haddaba halka wiilka reer baa ku sugaya iyo mas-uuliyad baa ku sugaysa waxaas lama yidhahdo marka loogu yar yahay waxaa la yidhahdaa waryaa nin baa tahay waxbarashadaada ka adkow si beritoole aad u shaqaysatid oo mustaqbal baa ku sugaysa intaas baa lagu soo koobaa haddaba marka maadaama nahay bulsho inteeda badan saa ku dhaqanta waxa weeyaan gabadhii macnaha dumarkii amba gabdhaheena Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin nolosha dhan inay guur iyo ilmo la dhalo kaliya tahay haddaba maadaama saas tahay waxa weeyaan haddaba aan kasoo gudubno taas gabadha walaasheen ah in badan maadaama ay qisadaas inoogu soo warantay waxa weeyaan haddana iyadoo tiktok macnaha ka dhex ooyeyso oo ninkii ka sheeganaysa baan arkay hase ahaatee waxa weeyaan haddaba taladan gabadha walaasheena siinay waxa weeyaan gabadhay horta inkastoo xalay toole haddana video kale aan arkay ayadoo live ku jirta laakiin ana ma daawanaynin iyadoo laga soo duubay baan arkay tiktok uu wareegayo gabadhaas walaasheena iyadoo le ninkii waan ka aarsaday ninkii waan dilay qabri baan u diray macnaha ilamay ekeyn qof sax ah haddaba qofku markay dhibaatada ku farbadato oo maxay ahayd aanu filayninna qofka macnaha aanu ka filayninna waxaa ku timaada macnaha damage oo maskaxda ka gaara markaasay sheegtay gabadha hadda ma shaqaysato laakiin way shaqaysan jirtay okay haddaba taladan siinay waxa weeyaan ayada iyo macnaha dumarka kale la midka ah aniga xataa laftirkii aan ku jiro waxa weeyaan gabadhay horta marka koowaad ilaahay inuu ku abuurtay adigiyo xor ah inaad ogaatid weeyaan kow
midda labaad ilaahay marka uu laba qof isku baneynayay inay isguursadaan inuu haddana inay isfuraan uu baneeyey taasna ogow midda saddexaad nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof haddaad jeclaanaysid ha wada jeclaanin nici doontaa hadhow ma ogid qof haddaad nacaysidna ha wada nicin jeclaan doontaa hadhow ma ogid taasi hadda maxaa ka tusaale qaadanayna taa waxaan ka tusaale qaadanayna haddaan dumar nahay nin markaan ninka guursano amba ninka maxay ahayd iyo gabadhu isguursadaan dumarka isla markiiba maskaxdeeda waxay ku qoraysaa ninkan cidaana iyada ahayn inaanay lahayn inaanu ninkani lahayn indhaan iyada ahayn kow waa midda labaad inay rafaad kaste ay macnaha rafaad kasto ay marayso ay ku dulqaadato ma xuma in la dulqaato ma xuma in la samro sida maxay haday ilaahay iyo nabigiisa inoo sheegeen labadaba samirku waa wax aad iyo aad u wanaagsan waa hadii aad samirtid macnaha ilaahay samirkaaga kuguma qadinayo inuu amba qofkaasi xun intuu kaa saaro uu qof wanaagsan ilaahay kugu soo bedelo amba isla qofkii laftirkiisa inuu ilaahay ku wanaajiyo intaba waa lagu helaa samirka inkastoo la yiraahdo marka hore uu qaraar yahay laakiin mirihiisa macaan haddaba waxa la inooga baahan yahay amba waxa inala gudboon qofkan aad guursatay waa qof ibni aadmi ah beritoole shalay saas ku barateen idinkoo waaweyn oo 20 jiro oo socda shalay saas ku barateen baad beritoole u kala tegi kartaan calaf baa isku kin keenay calafkuna uu dhamaan karaa haddaba waxa lagaaga baahan yahay intii aad noloshan aad ku jirtid amba qofka wada nooshihiin in aad samirtid oo intaad samri kartid naftaada arkaysid macnaha inaad samri karayso inaad samirtid noloshaada yareerkaaga wadatid carruurtaada dhaqatid iyo gurigaaga haddii laakiin aad isku aragtid inuu samirkii kaasoo dhammaanayo ambaba aanad awoodinba inaad samirtid oo macnaha samirkaa badan iyo hadalka la isku celinayo buuqaasi uu damage ku gaarsiinayo waxa wanaagsan inaad nolosha bedelatid mana xuma haddii qofka aad fahmi kari weydid amba aad leedahay inta hadhow toola xanuun kusoo gaari lahaa qofkan macnaha bedelo amba ka tagba ma xuma ina aad qofkii aad macnaha u sheegtid dhibaatada ka tabanaysid iyo inaad rabtid inaad dhibaatada ka baxdid haddaba xagga markaan ka hadalno qurbaha iyo soo qaadista rag fara badan ayaa waxa jira dumarkooda soo qaaday xaasas ay qabaan keenay qurbaha taasoo ay dhacday inay gabadhii la joogto iyo inay qaarkood iyagoona xataa is arkin ay ka baxsadaan oo xataa gabdho badan inkastoo imika lama aha inay jirto arrintaasi laakiin waqtiyadii hore ee macnaha dhoofku aad u yaraa dadka inta badan dhoofee maqna ay raguna u badnaayeen way dhici jirtay inteeda badan hase ahaatee haddii xataa lasoo qaado oo guri lagu digo ilmo xataa ay joogaan meeshii oo ay dadkii isfahmi waayaan oo kala tagaan way yar tahay amba anigu ma arkin xaqiiqada haddii laakiin xataa jirto way yar tahay nin ka cabanaya oo maxay haday ka calaacalaya oo le gabadh dambe ha soo qaadina sida le way yar tahay haddaba dumarow raggu maxay haday dumarka way qaadaan way kaxeeyaan qurbay geeyaan hatay fahmaana way la noolaadaan tay fahmi waayaan lama noolaadaan taasi macnaha waxaan oran karaa waxyaabo badan baa ay rag iyo dumarku kala duwan yihiin taasoo ninku hadduu xataa tago amba laga tagaba gabadhu ka tagto diidaba inay la noolaato asagoo ilmo culayskiisa ma qaadayo kow kii maxay haday uur lahaayo xataa uur isagoo laga tegay maaha waxyaabo fara badan macnaha way ka adkaysi badan yihiin dumarka talabaad way sheekeeyaan raggu rag dhexdoodu way isku sheekeeyaan way isdejiyaan macnaha warna iskama sheegaan laakiin inaka dumar ahaan dhibaatadeena haysatay waxa weeyaan qofkii markaad u dadaalaysid wax u qabanaysid waxaad sameynaysaa macnaha qofkani in aanu lahayn macnaha ayaad siinaysaa marka qofkii marka aad siisid macnaha muhiimad fara badan aad siisid oonu lahayn amba aanu mudnaynba in la siiyo hadhow toolo way adag tahay si aad u aamintid inuu qofkan kaa tegay amba inuu qofkan aanu ku rabin oo ku dhibaateynayo sababtoo ah dee qofkan waxaad ka dhigtay inaad adigu wada leedahay waad siisay naftaadii baad siisay inuu meel kaa tegi karana maad aaminin talabaad raggaad soo qaadaysiin haddaybadan hadhowtole aaminsanayn amba aydan aamini karaynin inuu qofka kaa tegayo oydan ku qanci karaynin oo intaa waxaan kulmaa tagtay haa tagtay ayaa ku tegay intaad tiraahdid aanad sii wadan karaynin noloshaada waxaan leeyahay iska daaya ragga soo qaadaysiin waabaad soo qaadayba ninkii waa isfahmada uu kaa tegay soo maaha dee walaal iyadoo wadanka la joogo iyadoo meel kasta la joogaa la kala tagaa inta la isfahmi waaye intaad maradaada waxaan ku intaad saas u sii eegtid tiraahdo tagtay ayaa ku tabay hawshaadii danahaaga wado walaa social media soo fadhiisan walaa waxaanad oran sidan midda kale dhibaatada dumarkeena haysato waxa weeyaan ma sheekeeyaan sababtoo ah waxay aaminsan yihiin cadow baad leedahay cadow baa san koodhanay cadow baa san koodhanay
cadowga dhan ee la sheego naftaada weyn adaa naftaada cadow ku ah sababtoo ah wax waloo duliyo in u dul qaadan kareenin baad siis u qaaday amba aad u ogolaatay qofkii hadduu doono dhibaatadaas oo dhan kugu hayay baad berito la soo ceshanaysaa markaas baa haddana dhibaatadii halkii kaaga sii wadaya marka ma dad kale kugu cadowa mise naftaada adaa ku cadowa taasna waa is-aamashtaan marka videogeenu sii dhaaraada ma rabo waxaan leeyahay calaacalkan iyo raggan waanu soo kaxaynay way naga tegeen ay leeyihiin iska dhaafa kaxeeya dad kaxaynaysan laakiin markay ka tagaan danihiina hore usii wata caruurihiina korsada midda kale dhibaatadeedan haysata dumar haddaad tihiin amba haddaan nahay aniga laftarkaygaan iska reebinay waxaa la yaqaanaa nin guurso dhal nolol kale iyo horumar kale ma taqaanin Soomaaliyeed marka intaas video kusoo koobaya inta inuu ka bato ma rabo walaashayna ilaa qalbiga u qaboojiyo iyada iyo kuwa kale la midka ah waxaan leeyahay noloshiina markasta dhexdhexaad ha noqoto konton iyo konton ka dhigta sababtoo ah hadhow toole markuu wax kugu imaadaan wixii wax weyn kulama noqonayaan waayo noloshaada waxaad ka dhigatay konton iyo konton marka intaas kusoo koobaya